kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheeda qaaliga ah ee aanu jecelnahay waxaan idinku soo dhaweynayaa toddobaadkan iyo bandhiga Nimco Samriye toddobaadyadii aynu soo dhaafnay fanaaniin kala duwan baynu ku soo qaadanay barnaamijka oo aan islaha markaasi dadka ku xiran ee daawada barnaamijku ha kaga bogtaan suugaanta iyo waliba heesaha caaw waxaan idin soo xulay gabadh da'yar cod macaan oo aan isri habeenka isaga ah inta barnaamijka soo hor fadhida alla ilaha de ma aragtay heesahaasi cajiibka ay qaado ha dhageystaan aad baan ugu soo dhaweynayaa bandhiga Nimco Samriye waa markii ugu horeysay inuu isu soo hor fadhiisano Xayaad Cabdi Cismaan oo loo yaqaano Xayaad Xikma aad baan ku soo dhaweynayaa waan dhawahay walaal farxad bay tahay inaad barnaamijka marti igu soo noqoto oo aan ku soo martay qaadno waliba adiguna aad naga aqbasho aad iyo aad baan kaga mahadcelinaya aniguna aad baan kugu mahadcelinayaa waxaad oran lahayd dadka ku daawanaya xilligan soo hor fadhiya waan salaamayaa dhamaantood waan wada salaamayaa waxaan leeyahay habeen wanaagsan habeenku haydin wacnaado inta maqalkayga iyo muuqayga garanaysa aad baan u salaamayaa heesa badan baad horta qaadayo jacayla ma inta jacaylku hayin baad u haystaan mise inta kale inta jacaylku hayo iyo inta kaleba waan gartay fankaagaan u soo noqonayaa Xayaad waxay ka tirsan tahay kooxda Nice Stars aad iyo aad baan dhamaantood u salaamaya ubax fahmo iyo waliba tiimka kale oo dhan Nice Stars bay ka tirsan tahay waa gabdhaha fanaaniinta ah ee markaasi heesa marka loo eego muddo yar oo kooban ayay ku jirtaa Xayaad fanka laakiin haddana heeso runtii cajiiba oo jacayla oo wada macaan ayay soo qaaday heesahaasi baan qaar kamida badankooga idin ma oran karo sababtoo ah barnaamijku radee kuma filnaanayaan dirtiba marka loo eego hase yeeshee qaar kamida ayaynu barnaamijka ku soo qaadan doonaa oo aan marba mid oran doonaa Xayaad noo soo qabo war kaleba intaanan gelin bandhiga waxaynu ku bilaabanaynaa hees kamida markaasi heesahay qaado Xayaad Xikma aan soo qabto abraar ayaynu ugu horeysiinayna heesta abraar erayadeeda waxaa samaysay maamo ubax daahir baxfahmo runtii anu gaar ahaantay aad u salaamayo aan aadna u jecelahay maamaday soo gacan qabatay fanka igu soo dhiirigelisay inaan heesi karo i tustay maanta heerkaan taaganahayna isoo gaarsiisay maasha allah aad baan ugu mahadcelinayaa maamaday heesta erayadeeda iyadaa leh laxanka Khadar Raambo baa sameeyey maxay haydana miisigana waxa tumaya tamaskan xabashiya oo tamaskan marasa adiguna de waa codkii mikrofoonkaad qaadanaysaa heesta barnaamijkuna iyo waliba Xayaad Xikma
alla ilahay waxba ka dhacay de waabaynu siganay heesta cajiibka ah ee markaas de calaacalka iyadu qaadaysay iyadiyo Marya cas xiran hotelkan Skyo iyaguna aad meesha intay u qurxiyeen alaab wada casligay de waxaad moodaa kalgacalkiiba inuu caawo isugu kaayimi Allah noo sahlay marka la ku soo noqonaya dhankan iyo heesta aniga iga qor weligaa haddaad aragto hees gabadhi samaysay gabadhina qaadayso dareen kama madna waayo isugu tagaano cuntooyinku si kasto rag u barto haddana dumarku waxa la yiraahdaa un koognimada dumarku waa cajiib way xawaasheynaysaa way alaabiyo waxba de adduunyo khumku waxaan u maleynayaa heestana waa hees la isugu tagay ubax fahma samaysay adigu waad qaadaysaa waxabay ila eg tahay ubax dareen looga sheekeeyay oo kale سهست أصوريسو كلي هذا درين كمان مرنا درين بكل كسميسي كلي هسه بدنا نقول بان هون دريمية أنا كنا دريمية يا يعني ده بوشدو ما كلي أنا جو هسنايون هسه عندك فنانين تبوشدو إن قنعسون بين مرول بايس وديان مركا حلقة يا أبو هو يعني إن فكر كيجي أي بوشدو ده مقارنة ساو صوب عندكتي أنا كنا عن حي هيداني أسوي قد بيه ده واحد لكن درين كاد قاعد يسمير ذيك كايمنا مو هينه adiga kuma xuseeyad le may dareenkaas si marka loo eego jacaylka marka laga hadlayo fanaaniinta markaad weydiiso waxay koonanayaan isagii dadka xataa inuu ooyib wax koonay may ima xuseyso jacaylka waa lagu faanaa ma aha wax laga faano inaad qarato waayo xaq waxaad u leedahay in lagu jeclaado inaad wax jeclaatana xaq baad u leedahay inaad guuleysato iyo marka inaad guul dareysato wax ku xiran ma aha ma xuseeyaan inta badan waxa la yiraahdaa gabadhaas sidaada yar heesaha qaadayso waa heesa qisa jacayl oo iyada khusaysa taasina waxa leedahay ma jiro taasi wax jira ma aha waxa leeyahay waxaan u gudbinayaa bulshada baan yani aan ka hadlayaa aniga waan qancinaya ay runtii wali waynu sii soconnaa haddaynu tan u nimaadno markaasi fanka inta badan fanaanka waxaynu aragnaa isagoo intuu heesay haddana koox ku biiray laakiin markii kuugu horeysay ee aad heesto waxa lagugu dhaxarkay kooxda Nice Stars qaab nooceed fanka markaasi aad u soo gashay seed isku heshin kooxda waxaan isku helnay fanka horta markii ugu horeysay boorama ayaan yani fanka ka soo bilaabay markii ugu horeysay markaan maxay haydeenay ku hamiyay inaan fanaanad noqdo isgartay inaan heesi karo markaas waxaan maqlay inay maamo ubax ay koox samaysay waan la soo xiriiray waan u yimid ma sha Allah si fiican bay gacan qabatay ii soo dhaweysay ay maxay haydeen si qalbi furan ay igu soo dhaweysay kooxdii ay gacan qabatay heer gaarsiisay ilaa imka yani waxaan ku leeyahay ani iga hadin ay wali i wada wallahi fanka waxaan jeclaa anu ilaa ano yar fanka waan jeclaa waan ku dhiiranaan jiray inaan fanaanad noqdo ma sha Allah horta wallahi aadna waan ugu hambalyeynaya maxay haydeenay maamaday wax daahir iyada aad ii soo gacan qabatay oo heerka maanta ii soo gaarsiisay waa tahay su'aalaha kale way noo dambeyn doonaan de malaha haddana mar kale waxaynu u baahanahay inay deeyna saarto leexada jacaylka intaynu sidaa u wada lulmano aynu mar kale jawigii casaa ku noqonay aan soo qabto heesta ha hilmaamin heestaasi iyada qudheeduna waa hees jacayl waxay tilmaamaysaa rag badan baa adduunka ku nool laakiin qofkaad u heesayso anbaba dee aan ilaahdo abwaanka samaysido erayada u samaynaya ha noqoto in qof keliya intaad ka soo xulatay dadkii aad leedahay waxa haliye joogo oo dhan adaan keliga gacanta ku haliye horta gabadh kastaaba waxay wiil bay dee haliyey iyadoo ah dee dabcan qof walba qofku xisho ayuunba iyadoo ah marka anu heesta abwaan baa ii dhiibay laakiin haddii aan dhinacayga u fasirto dee qof walba dhinaciisa u fasirtaan leeyahay aniguna dhinacayga aan u fasirto dee haliyegeygii baan ugu heesay habluhuna haliyeyadooda ugu wada heesay marka heesta si erayadeeda iyo iskale erayadeeda liibaan fagadhe iyo erayada sameeyey maxay haydeenay laxankana waxa ku laday karoone macalin karoone miisigana waxa ku laday Cabdiraxiin Axmed Carab liibaanka iyaga saxaafada hamsa liibaan fagare saxaafada kama aragtay saxaafada laga maneyn marka waa maxay liibaan fagare erayada sameeyey laxankana waa karoone miisiguna Cabdiraxiin Axmed Carab codkuna waa adigi marka la kaacsan lahaa mikrofoonka inaad qaadato asxaabta farsamada weydinka
wayna ka hadaba heestii ha hilmaamina wada aragti baan filayay waliba markaasi xayaad xikma oo inoo qaadaysay waxaynu bartanka kaga jirnaa bandhiga nimca samriye heesaha jacaylka baan hore ugu sii soconaya ilmada gobo iga tiri waa tahay waynu eegi doonaa waxaad la ilmaysay heestaynu ka dhadhansanayna erayadeeda heesta waxa sameeyay wiil daayar dalmar in oo kooxdana star ku jira maama ubax baa laxanka laxanka in dhankii laxankana imiga waa gartay laxankuna waa laxankii ubax in erayaduna waa erayadii dalmar miisigu waa in macalinkayda Yuusuf Sheekh Muuse Maxayaan isagana halkan ka salaamayo gartay waxaynu eegnaaba ilmada iga gobo tiri daawashadaas
واتهاي نصيب إيجا جاحديو قدمان ولي قدول رادية قولان تلا صارتيو كمان هارين قوش ولي دي قوش قفك هاريو رادين واي رجدو دي هدي دماتنا ولا شار دماتا قفك وحوم بورجية وحتى دمان هي سهان قاضو وحي خسية معه وابدعي كريسا لكن كواد قادو مid aad istiraahdo kan aad ugu jeceshahay heesahaaga dadku markay fanaaniinta heesooga dhageysanayaan mid bay iska jeclaadaan heesahaaga mid adigu kamid ah oo aad markaad qaadayso dareen ahaan ku gilgisho jecesha ma jirta waxaan aad u jecelahay heestii ha hilmaamineen hore u soo qaaday baan anigu heesahayga u jecelahay waan gartay hees macaan bay runtii ahayd ma jeceshahay heesaha hore ugu sii socona dhanka musica waxaan soo qabanayaa hadaf وهسي وجوه الرياض قاعدة فيليا. وهسي وجوه رسين هاي قادوي. هي. فك على البرد أيد كسوق الشيء صولا. هيسود على. هيسود على هاي. إن وحن حسين شري هسا على الكا. وإن أدو شلا. فورتشو اللي ما قاد. فورتشها وان قادة. هي. يضلوا فورتشين يهرتوا أنا ركوه هستلم حالي. أنا واحد فورتش. عبد الرزاق كاكا وذقاد. ويجرته. أدو قمت فورتش سامي. أنا فورتشيني أنا دور بشرة. هي. عجيبة تمرك. واتهاي. هستين سوق بنا وهدف إريدي ده. هدف إريدي ده خضر رامبو. لحن كان خضر رامبو باكولاري. هي. ميسي جانا عبد الرحيم أحمد عرب. هي. ميكروفون كان مركز لقب سنة ساعة. بينك.
واتهاي داوديال waxaynu soo soconaba gabagabadii iyo barnaamijkii bandhiga nimco samriya ayaynu joognaa heesta ugu dambaysa ee markaasi aan soo qabanayo waa haydaaro mikrofoonka mar dhow baan idinku wareejin doonaa xayaad kelmadda ugu dambaysa ee aan xayaad xigmo ku siinayo waxaan salaamayaa haye dhammaan asxaabtayda oo dhan kooxdeeda Nestar inaad ku jecelahay iyo maamaday waxtaay waxtaamo iyo Yusuf Shaqo Musaxaya yana salaamaya iyo Amira iyo Aragsan waxaan halkan ka salaamayaa Niloobin in labadayda hablood muhaayimiin iyo abahood Mustafa Idris yana salaamaya in walaashay oo Djibouti joogta saamina waan salaamayaa labadayda carruurna waan salaamayaa idadii Safiya meedana waan salaamayaa inaatida Yasmin iyo de ehelkii asxaabtii iyo inta kale dhamaan intii maqalkayga iyo muuqaalkayga waa tahay heestaasaan kusoo gabagabeynayaa aad bay u mahadsan tahay fanaanada markaasi xayaad xigma aad baan ugu mahad celinayaa barnaamijkiina intaasi ayuu nagagag yahay sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa hotelka Sky shaqaalihiisa dhamaantood gaar ahaan Filsan jaamaca guuleed oo aan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay farsamayaqaanada ku hawlanaa barnaamijkan igala qayb qaatay dhanka film qaadista Maxamed Axmed Xuseen Gaabane iyo سيد محمد عمر سيدو يولي عقال آدن عبدي يسوون النو صورة قليي أون آد وقوم مهد علينا يو هبين تيسكو دبرت كنا وعلى عثمان علمانو أنا يقول مع سمرية تاني يسرق ذنبه هستا سنة ديك جت يا حياة نبضي
عاشقو هيا